وحالكم كسر موجسين إن التاجر سنتين عليه إن شاء الله تعالى عد كناصين بوطان أنا وحنا نتكلم بالله إنه كان نقطة خبل وشرحين تا لبيس ديت كحضور الصوت شرح الدكتور دارينا هذا واحد مغطى إن الدعوتين والدعوتين وصابسين إن شاء الله تعالى إلى ما يجون إلهي إنه يكون بينهم ما إلهي يتكبر سبحانه وتعالى ما نفع waxay u baahan tahay maalinta markii ay isdiiwaangeliseen dee waxay 4 maalmood ahayd dad baa laga soo guray meelo badan maalinta codku waa maalin keliya hawshu way harsan tahay dadkii 4 maalmood soo rarteen si ay maalin qura u codeeyaan ayaa la idinka fadhiyaa marka waxaa lagu kala tagaa dadka isdiiwaangeliya lagu kala tagay waxaa lagu kala dheereeyaa dadka maalinta codku jiro soo xaadira marka ilaahay ka dhigo kuwii soo xaadira oo wada yimaada ilaahay ka dhigo subxaanahu wa tacaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu musharaxiin calay u xasuusan yahay wixii nagu dhacay wixiina soo maray dadkeenu wixiina soo maray waa iloobi sideed kiiba aniga aan magaalada burcay berbera markii afweyne la tuurtuuri jiray ayaa halkan nimid waxaa meesha joogay in la odhan jiray labaale waxa weeye magaaladaas wadooyinka way kala xidhnaayeen aroosyada subaxnimada ay samaysan jirteen dhaqdhaqaaq warqadda dhaqdhaqaaq la samayn jiray wixii waa la iloobay wax maxamed siyaad bare ku talagalay markuu diyaaradaha inala dhacay inuu halkan dad kale ku beero inaguna sida falastiiniinta aynu inagoo kuuliye halkan nimaado dadku ku beero u shaqeeyo ilaahay muu yeelay subxaana wa tacaala 2 sanadood ka bacdi waa kii ilaahay gacanta inoo soo geliyay halkeena shugriga badan lahayn ayaynu markiiba qaybiyaalad bilow reer bilow maalintii afar bilood baa ka soo wareegay markii aynu ku dhawaaqnay dowladnimada markii haddana dhexdeena iska laynay halkaasaa lagu heshiisiiyey ciise muuse iyo habaryo sheekh nin ciise anugu markaa ma joogo nin ciise hadlay wixii waryaalahayn reer Sheekh Isxaaq anugu nin ciisaan ahay buu ilaaha wuxuu yidhi markii afweyn oo Soomaali dhibay ilaahay sabab idinka dhigay inay ka ridaan ee Soomaali xoreyseen Soomaali intaasaa dhaaftay intaa in laga dhaaftay hadda waa iskisheen buu yidhi Soomaali la simateen buu yidhi bal hoosa noo dhaafina afar iyo sagaashan kiiba hoos u dhaafnay afar iyo sagaashan markii hadda la isdilay cigaal jabhada loo sameeyay hoos u dhaafnay ilaa maanta waan sii quusinaa waan sii soconaa waynaga sameeysan kale wayna washadeeni sibirkeen ayaynu ku heshiin weyn biyo xubba weyne ayaan soo saar weyn magaalada kale kala sheeganaa magaalada bariga Hargeysa waqooyi Faransa koonfurta Hargeysa waxay ku hadleen wada dhashay Soomaali way naga maadsataa tiifiyada markaan ka hadlayno aan reero hadlayno waxa soo dhan maxaa u aabba waa hoggaan xumo haddaan dumarku aan hoggaan lahayn binaadam haddaan ilaahay noo soo dirin
محمد حاج راعي قال له أنت ما أنت حيسنين كل عيالنا دستور يحف في سيرة منه سميسان كمان لكن إلهي نوصل إلهي قبل كسالة لما كان الويادين كان إلهنا يستقنا ما يقانوا إصابة يقانوا وحي إلهنا الدور تدوكم مقال كما قوصوا أيو قيلوا نيبا تاسموا يتاسوا أحسر بعض قيلوا مقال maanta waa ogtiino halkan marna waa ogtiin maanta halka ogtiin waa marna ilaahayna badbaadiyo subhanahu wa ta'ala waxaan ku badbaadinaa inagoo doorasho wanaagsan qabana diwaan gelin wanaagsan ma qabana alxamdulillah rabbil caalamiin beela aan aad uga soo qayb gelin jiray ba ka soo qayb galay nabadgelyo inagu dhacday waa la tartamay si fiican baa la isku diiwaangeliyay komishigii waa shaqeeyay ciidamada nabadgelyo way shaqeeyeen madaxweynuhu lacagtii u bixiyay waxaa la soo saaray maanta inay doorasho dhacdo 31 May insha Allah taala waxay maanta hor taala waxa weeye guurtidii bay hor taala ilaa waxaan ka barnay guurtidina maanta rootan u yeernay shirgudoonka guurtida saddex xusbiye madaxweynuhu aad buu la hadlay anoo wala hadalay way nala qaateen mabda ahaan inay waqtiga iyaguna ansixin doonaan waxay sugayeen gudoomiye guurtida Salman Karim oo imaliya xaddi shalay tu yimi insha Allah waxaan ka sugaynaa islaayeen markaa وأنصحيه أيون قالنا دور الشوال عكس وحرمنا حبايله بدل ما ينوطها إنه إلا ما ننتهي دور لما يسكن خسارناي وحي نوكر نمشي لحلنك كلا قبل العالم هوس بينو سعن ما أنا وحنا شان أفريقيا تبنتنا حمد سلوك قلق يا حمد يا هرجيسة ويسكون الدواعي هنا كان تعليم بدنين لما يسكون بالله فروه وإنجليز من واحد البلاد اللي بالله يورينش منا أنتك بقول كم السجاش أما جاي يسكون الله قبل ليش مال وهندان لهين سكولز فرسمة لهين إنه الشيء سكول فرسمة لهين تريننج سكيم لهن نيرس سكيم لهن وعلى تريننج سكوكي CTC لهن تيشرز تريننج لهن يوم يقولون لهن وعندنا ثليانو موسكا بقولن شري وحور مرة ثليانو موسمي بيس ثليانو موسمي administration ما لهن هكاكس ما أنت ودوك وين قال تعليم بدين ما يعيسوا ما يكون شقيس ما أنت PhD ليه هنا مليه وين قال تغالب بدين هدي أنا إنه يسقطلان هدي أنا يسقطوا قادم هدي أنا يستعلان هدي أنا عدالة يسقطين جيت كأقادمين ما أنت وقتي واحد حمر هايستا حمر هايستا أنا يرى عيل قبا أو مملكتي لقدمي سياد بره أو كوي لبعتنا أنا اللي شوقي أيه يبغى يسوق حمانيان أيه دورتين وإحنا هو ما هيستدل كUSB شيء هذا حوي هو ما هيستدل واقع إذا نص ما يسي يم يقدروين واقع عروتهم أنتم تقولون يقدر بان جينيا إريتريا كان هذه إريتريا على جاي إريتريا وحسيق يسأل التجري إلا هذا هو يو كيبا أوريو وما تشواليو حلو ما هيست حلو ما هيست كيبر كيس أنا كاسي تاجر كذا نوع النجح ينوي الوسوس السعودي إثيوبيا إريتريا وحولتها شرعي إنه ينجح نويرينا كاي
ilaahay baan ku dhaariyay horta waxaas ay nagu soo socda haddii aanaynu midaysan oo dalkeena haysan oo isjeclaana oo ina qabsan doona kaay wax ka xubo ina qabsan doona wixii ina yeelay waa ilowlay kelmadan inagu isnaba xasuusana war waxay ku hadlay ma maqashay war wuxuu idin ma maqashay waa hadan nin qeyr mas'uul u yiraaho ayaan kor qaadina waxa weeye intaasoo suldaan baan leenahay intaasoo caaqil baan leenahay intaasoo mutacallim baan leenahay wax dan guud ka hadlaya ma jiro sheekheenu ka xabarnu ku xidhan yahay inuu ku leeyahay muslimka lama kala jarjarayo dowladda sacuudiga nagu soo darwaatay bacda sacuudiga kii halkan ka waaya Soomaaliya lagu magacaabo waaya xabar buu tagaya hadaway wax aaminsan yihiin ma jirin dadkeenu wallahi hadda baydhabo looga yeero South East Kaleela state Kaleela South East wada wasiirada ka siliya isaaq uu tagaya dadka shaqo way tagaya wallahi mabdaba ma dadkeenu nima waqaftan laba kun saddex kiyo xamar tagayo waxaan ku warmarkan iyo inta istaagtay tiri Abdullah Yusuf adoo wasiira Abdullah Yusuf loo fasaxo hubka soo doogayna hubka Abdullah Yusuf anaga nagu qabsanayo wixii waxaan doonayay in xoog isku qabsada waadu ma qabsitay ma inta Abdullah Yusuf loo dirisay ma ku yiri ogeeyay waa dadka container ma ku haysan buu yiri waxaan idhi inta xaraash leh container ka loogu jiray baan ku yiri ina wasiir bayna siisanayaan iyo wasiir ku-xigeenayna siisanayaan hada waa inta marka waxa weeye waxaan doonaya reform halkii uu kaga tegay dalka ciyaal ayaynu joognaa waxaan doonaya halkii ka bilowno koor u socon rabnaa insha Allah taala oo ciidanka oo baarlamaankaasi uu soo baxa baarlamaan wanaagsan oo cali soo fakariya oo Soomaaliland u dhidibada waasa haddana anagu maanta haddana waqtiga u dhamaado kuwan wixii garan maayeen dawladnimada way soo dharan waxaan jecelahay inaan aasaasku inoo dhigay maxamed xabjiraaci ilaahay jannada ka waraabiye inaan idin qurxino oo u dhiibno kuntan jiri waxa malihiine afartan jirka kuwa yaryar soo kacay u dhiibnaan doona insha Allah taala oo halkan aan laga haajirin loo soo haajira oo laga tahriimo loo soo tahriila insha Allah taala baan doona insha Allah taala marka waxa weeye dadkeen waa isku mid baynu nahay ilaa ka laasqoori daga ilaa ka sayid daga waa family baynu nahay waa is wada guursanay iskuulaan ka wada baxnay waxa u baahan oo kale waxa weeye hoggaan ilaahay hoggaan walaakina subhanahu wa ta'ala ilaahay hoggaan توحيدك أينو كقرني كقرني لا إله إلا الله كقرني على كين ما كان الدجال ما حلهن حطينا خرينه سو كاكو حكومي من كتابك ها وإلهي ما كربحنا بالنت سبحانه وتعالى بالنت كربح كاسيل حكومي إن شاء الله تعالى كتابك يا سنة رسولك حكومي إن شاء الله تعالى مركزو خير كينو إيمانية markaasina aqabiyadu ka dhamaanaysa markaasina cadaada helina markaasa khayraadka baldeena iyo ku jiray ilaahay noo soo saaray markan kitaabka ilaahay sunnah rasuulka qaadi calayhi wasalaam markaasina taasayno salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh